السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا الصومالي هيلث لايف ستايل وان channel kaad alaaba kala xidhiidhan wixii caafimaadka quseeya waxaa horta aad u habboon qof kasta maxay mawduuca uu magaranaysaa takhasus u leeyahay in uu magaranaysaa ku eekaado haddii uu mawduuca magaranaysaa ka baxa qudhiisa inuu dee magaranaysaa taxadir badan sameeya la gudboon arrimaha caafimaadka badanaa dhakhaatiirta ayaa loo daba fadhiistaa qof kale oo aan caafimaadka shuqul ku lahayn haddii uu siraa magaranaysaa ka faalloodna badanaa maxay yani waxyaabo qalad u keenaa waxaa maxay dee muddooyinka badan hadda maxay aan caan ku baxnay in ay jiraan maxay cilaaji fara badan oo maxay yani koonayaasha maxay yani magaalooyinka Soomaalida oo dhan ka buuxa kuwaasoo yani dad fara badan oo maatiya magaranaysaa lagu furto oo magaranaysaa dee yani lagu baharowsado waxyaabaan jirin oo khuraafaada weliba dhibaatooyin dee magaranaysaa dhibaatadii haystay ka badanna la gaarsiin karo hadday nafsi noqoto iyo hadday noqoto dee mid jir ahaanba video aan goor dhawey daawaday runtii yani nin miskiin ahaayoo ka dhex muuqday dhibaatadii maxay markaa uu ka cabanayay oo dee qofka maxay alifba medicine ama caafimaad yaqaana markaba garan karo ayaa waxa dhacday in magaranaysaa sixir iyo waxyaabo loogu sheegay aan waxba saliir reed lahayn oo magaranaysaa mushkiladii caafimaad haysatay magaranaysaa loogu sawiray inay tahay yani maxay sixir loo soo adeegsaday oo meheradiisii uu ka shaqeysan jiray wixii xaasnimo awgeed loo sixray aduu ninkaas oo videogu uu sheegayo inuu Muqdisho joogo waxa ka muuqda xanuun la yiraahdo elephantiasis marka ardayda caafimaadku garanaya amaba maxay qofka magaranaysaa lugtu weynaato ee lugta maroodiga kala weekaato marka dadkeena dee maxay Soomaaliyeed waa laga soo heliyaa dad xanuunkaas magaranaysaa uu ku dhacay siiba maxay Afrika uu ku badan yahay meelaha maxay kulaylaha oo dhan ku badan yahay marka xanuunkaas ayuu ninkaasi ka cabanayaa lugtii ayaa magaranaysaa geedka leekaatay marka meeshaas maxay qiyaastii la geeyay magaranaysaa cilaajkaas oo dibadna la yiri maxay halkaas maxay sheekhu kugu eegaya oo dee magaranaysaa ku oran doona waxaas ku haya marka waxa uu yiri sixir baa ka dhex hadlaya niman baa ka dhex hadlaya waxay yiraahdeen meeshii meheradiisii xaasnimo awgeed baa maxay aanu sixirka ugu sameeynayo dibadna maxay lugtii ayaa maxay saa ku barartay arrinkuna waa sidaas marka haddii sixirkan laga saaro lugtu way ku caafimaadaysaa ayuu oranayeen wax kasto sababtiisa la ogaado sababta marka la xaliyo dee waxa ka baxay meeshii magaranaysaa wixii dhibaato ah jir ka baxay carabtu waxay yiraahdaan idaa urifa sabab badul alajab yani wixii lala yaabanaa ayaa meesha ka baxay haddii sababta la ogaado okay adugu ninkaas oo elephantiasis ama filariasis waxa la yiraahdo uu lugta ka haleelay ayaa xataa waxa marka uu sheekeynayo uu ka sheekeynayaa wixii uu dareemay oo qof kasta oo maxay doctor ah uu oran karo waxa weey waa acraadii ama maxay calaamadihii lagu garan lahaa inuu xanuunkaasi sidii maxay dabiiciga ahaa ugu dhacay oo aanu xataa dee ahayn maxay sixir xanuunkan isu eekaysiinay aanu ahayn magaranaysaa ila qof baa la oran karaa mesela kansar kan kugu dhacay baa sixir baa sabab u ahaa ma fahamtay laakiin waxaan oranayaa markaa ninkaas yani waxyaabaha ka sheekeynayo waxa aad oranaysaa waxa weeye wixii sida dabiiciga ah lagu ogaan lahaa inuu yahay xanuunkii filariaska ahaa ayuu kaga sheekeynaya wuxuu leeyahay waxaan dareemay qandhaan dareemay in xumad iyo malaria iyo waxyaabo dareemay marka sida rasmiga ah waxa maxay sababa xanuunkaas waxa weeye waa kaneeca yar oo magaranaysaa mosquito ah oo intay soo qaato maxay xayawaanad parasite soo qaato oo magaranaysaa yani adu dufayliyaad parasite waxyaabo dee magaranaysaa jeermis yar oo ilma aragtay oo sido ayaa ay jirka magaranaysaa bini'aadamka marka ku mudaysaa noocaas oo loo yaqaano Wishereria bancroft marka parasite ka yarba waxa uu xirayaa channeliska ama mesela vesseliska loo yaqaano lymphatica marka jirkeena marka laga yimaado acsaabta oo ah neerfayaasha waxa ku jira dhiigga cad waxaan jira dhiigga cas iyo dhiigga maxay buluuga ah ee carbonka wata iyo waxa la yiraahdo lymph oo ah biyo maxay yani sida biyaha cad oo kala ah yani biyaha in cabnimo martay aadka oo kaleerka ah yani fluid ama mesela dareera lamid ah ayaa jira oo jirkeena ku jira oo magaranaysaa maxay jirka oo dhan magaranaysaa soo nadiifiya marka channeliskaas lymphatic la yiraahdo magaranaysaa biyaha maxay cad sida ayaa waxa dhacaysa isxiraya meeshii marka ay ka qaniinto
siban badanaa maxay lugaha hoose iyo magaranaysaa maxay gacmaha iyo naasaha iyo odi magaranaysaa qof dumar tahay naasaha way ka abaari kartaa qof maxay nina hadii ay magaranaysaa yani xiniyaha iyo erida xataa way ka abaari kartaa genitaliska adigu lugaha markaa maxay very common even xataa maxay magaca magaranaysaa elephantiasiska sida ay ku qaadatay xanuunkaas waxa weeye in ay magaranaysaa lugaha ku dhacdo waayahay marka lugtii geedkaas la kaanaysa maxaa dhacday waxa isxiray channelada yaryara ee soo qaadi ama xididada yaraa ee qaadi biyaha marka meesha waxa ka buuxsamaysa biyo fara badan ba ka buuxsamaya mar dhowna maxay waxa dhacaysa in jirkii markuu bararo in ay magaranaysaa wixii yani lugtiisi inay lugtay magaranaysaa aan nolol fiican ku nool aan ahayno de lug dhimatay oo kala magaranaysaa aan de si fiican magaranaysaa dhiigi uga dhex shaqeynin si fiican magaranaysaa aan maxay wixii cunto ahaa aan uga faa'iideysanin marka dabeetana bararkuna iska soconayo ilaa wixii meeshii ka bixi maayo hadii mesela bulaacad xagga hoose laga xiro de biyaha xagga sare ka imanaya way buuxu dhaafayaan xagga sare marka saas oo kala weeye adigu ninkaas am maxay waxa leeyahay waa sixir baa ku haya hawlaaga sidaas marka aynkan de kulena lacag laga qaatay de aashaab iyo waxyaabo aan loo fadhiyo badan lagu gurni ka magaranaysaa sida de u caadada ah dadka magaranaysaa cilaajada ku shaqeystay rusheeyaasha okay taasoo kaliya ma ahayn arinku dumar kale oo ilaa 3 ayaa jiray iyaguna fiidiyoga aan ku arkay oo magaranaysaa la yiri waxa ay liqeen sixir marka sixirka ka soo matajinaya ta koowaad waxa uu yiri sixirka ku haya calooshadu fadhiya markaas in laga soo matajiyo ayaa maxay hadda diyaar loo yahay marka group dumar ah oo de magaranaysaa shaqaale ah oo shaqeynaya oo ifan xataa xira magaranaysaa yellow festig magaranaysaa loogu tala galay dadka shaqaalaha whatever meesha ka shaqeynayaanba marka dad waa shirkad meesha magaranaysaa day ka jirta gabadh baa marka halkan kala lulaya saa loo ruxaya waxa marka ay soo tufaysaa sida maxay fiidiyogu sheegayo waxay soo tufaysaa xabad timira gal baashi maxay lafta timirta ya marka lafta timirta ayaa ay liqday oo sixir ahaan loo liqsiiyay sida aynu caafimaadka ku ognahay haddaad laf timira liqdo 99% boqolkiiba 99 waxay soo raacaysaa saxarada soo raacaysa waayo markaad liqdo dib cuntada liqna dib uma soo noqonayso cuntada way soconaysaa passage-kii ama مثلا yani socodkii caadiga ah ee dabiiciga ah bilaabaysaa ah inay hunguriga marto caloosha ku degto dabeetana ay magaranaysaa meedhiciradan oo sii gudubto marka wixii maxay yani dheefshiid geli kara cuntadaas ayuun baa dheefshiidka kala inta kale waxay ku soo baxaan saxarada ku soo baxaan marka qofku hadii uu liqo مثلا maxay wax macdan ah oo sida مثلا yani shilin uu liqo ama uu bir kala liqo taas waxay keentaa in maxay dhaqaatiirtu ay si degdeg ah u baaraan halka uu marayo magaranaysaa raajooyin iyo sawir qofka aad magaranaysaa loogu daba socdo ama mindaar xataa lagu dhaadhiciyo si loo ogaan karo waxa salku fadhiyo waayo wuxuu fadhiisan karaa meel aan meeshii maxay yani saxarada saari jirtay aan ahayn ayuu iska fadhiisan karaa dhib u keeni karaa laakiin laftimireedu dee waxay ka mid tahay cuntooyinkii aynu cuni jirnay laakiin adagun wey wax kala ma hadday xataa meel fadhiisato muddo xataa meel fadhido waxba kuma yeeliso maaha yani wax maxay meeshii mirir iyo daxliye wax noqonaysa maaha ama sun kala keenaysa adigu almuhim gabadhaas laftimireed ayaa leeyahay way liqday oo sixir ahaan bay liqday hadaba laftimireedii ayaa 7 bilood iyo 8 bilood iyo waqti dheer ku jirtay oo hadda laga soo matajinaya markii hadaba maxay laga soo matajiyay laftii timireedka ahayd oo qallalan oo kaliya ayaa go'ado halkan yaala saagu soo dulacday maarta laftan timirtu ma meel bacaha ma meel kiish ah bay iskaga jirtay ma jeebkeeda iskaga jirtay qofka marka calooshiisa wax ka soo noqdaan shaygaasi shay qallalan sida u noqon kara yani haddaad xataa cunto yar ku maxay saxato wax duuf iyo maxay muxuu balqan iyo wax ka soo daata iyo dhareer iyo wax ka soo daata wad ogtahay bal ka soo qaad shay ku jira calooshaada intaas oo magaranaysaa cisho ama intaas oo maxay bilood ku jiray oo maanta maxay inta saa lagu ruray hada ka soo yiri hadda maxay dhareer yar maxay dibinteeda ma soo bixin wixii baasho qalalan ay soo bixin taasoo kaliya ma mid kale waxa laga soo riday dhagaxinta leeg oo magaranaysaa xeebta maray joogtay liqsiis sidoo sheegay waa dhagaxyo qalalan oo kaliya inta leeg xabad kale waxa laga soo ridayaa silsilad dahab oo inta yani aad u dheer waa silsiladii oo qalalan oo aan inta in leegudan marka يعني waxyaabaha u baahan in la yirto istaago weeye
dumarka meesha joogo dhamisaasay magaranaysaa waxaad reynayaan oo boodboodiyaan oo baabacda ka baxaysa maleemaysa haddana haddii meesha ay ka dareeraan caadi bay iska noqonayaan marka arrinkaas ahaa elephantiasiska iyo maxay dumarka badan ee maxay meesha uu ku wadwaday waa arrimaha aan aad ula yaabay sida maxay yani qafladda aan iskaga jirno iyo magaranaysaa sida jahliga loogu maalayo runtii waxa aan jeclaysan lahaa in aan halka kusoo koobo kelmaddan qof kastaana dib uu ka dhigsan yahay dhibaatada ka jirta meesha laakiin qofka xanuunsanaya meeshii la yiraahdo caafimaad ba ku yaala hore buu ka tagayaa haddii aanu cilmi ku bees garaysnayn assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh